waa tahay sidaan horay idinku sheegnaba waxaa qadka si toos ah inoogu jira Gudomiyaha jaliyada Koonfur Galbeed North America Sheekh Nuur Xaaji oo ku sugan dalka Mareykanka. marka ugu horeyso Gudoomiye ku soo dhaw telefishinka RTN adiga noogu bilaawaya magacaaga iyo title-kaaga iyo goobta aad ku sugantahay xilligan. aad u mahadsantahay sirjito adiga TV-ga waa idinka mahadnaqayaa Wareysigi ila yeelanaysaan. aniga magacaygu waxaan lahaa Sheekh Nuur Xaaji Aadan Xuseen oo ku magacdheersan fare waxaan ku noolahay wadanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis. waa gartay Gudoomiye waxaad aas-aasteen dhawaanahan jaliyad oo inta badan ka shaqeysa arrimaha dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Koonfur Galbeed iyo bulshada Soomaaliyeedba bal maxaa idinku dhaliyay inaad aas-aastaan jaliyadaas? aad u mahadsantahay sirjito jaliyadan qabanqaabadeeda waxay bilaabatay 2018kii waxaana la dhisay 2019kii bishii July oo maanta laga joogo sanad hadda waxaan u dabaaldegaynaa waa sanad guurideedii koowaad waxyaabaha lagu kalifayna waxay ahayd inaan aasaasno ama hindisno jaliyadan in baahida jaliyada wadanka America ama North America guud ahaan ku nool in baahidooda aan daboolno waxyaabihii u baahan yihiin sidoo kale inaan midayno aqoontooda iyo dhaqaalahooda iyo awoodooda si wadankii ay wax ugu qabtaan. aad weyn bal xiriir intee lagu idinka dhaxeeya idinka iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed? anaga iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed xiriirkan aad u wanaagsan yahay. dawladda Koonfur Galbeed waxaan u taaganahay inaan maaragtay wax walba ay u baahan tahay inaan garab ka siino sida hadda aad arkaysaanba dhaqdhaqaaqyada aan ka sameynayno gobolada iyo degmooyinka waxaan u fiideeyay madaxda deegaanada joogta. bal waxyaabaha idinka aad ka shaqeynaysaan bal maxay tahay oo aad isleedihiin waad u qaban kartaa bulshooyinka Koonfur Galbeed kuwa magaalada jooga iyo kuwa gobolada dalka ku dhaqanba? aad iyo aad waxyaabaha loo aasaasay waa laba qaybood qayb aan ka qabano wadankan hadda anaga aan ku noolnahay North America iyo qayb aan ka qabanayno wadanka Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed. deegaanada Koonfur Galbeed waxyaabaha aan ka qabanayno waxa waaye horumarinta iyo wacyigelinta iyo taakuleynta dadka reer Koonfur Galbeed. waxyaabaha aan ka qabanayno North America waxa waaye adeegida iyo wacyigelinta iyo isku xirka jaaliyada. ma isleedihiin marka baahiyahaas wax badan ayaad ka qaban kartaan xilligan ee la taagan yahay? aad u mahadsantahay horta aniga hadda sanad guurideeni koowaad waaye sanadkii hadda la soo dhaafay waxyaabaha aadkaan ugu qabanayno waxa ka mid ahaa in horta jaaliyadii aan hageeda ku istaajino number 1 number 2 inaan isku xirka iyo macnaha in jaaliyada dadka la gaarsiiyo North America waa weyn tahay especially America wuxuu ka kooban yahay 50 state waxyaabaha ugu weynaa oo sanadkan aadkaan ugu mashquulsanahay waxay in jaaliyada aan gaarsiino dadkeeda sidoo kale aan isku xirno arrimaha aan ka qabanay wadankana waxa ka mid ahaa in maaragtay aan ka qayb qaadanay fatahaadii ka dhacay wadanka guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Bardal iyo Afgooye barnaamijyo gaaban oo maaragtay oo fara badan wax ka qabanay gobolada Koonfur Galbeed. hadda waxyaabaha aan ka wadno waxa ka mid ah program aad iyo aad u weyn oo loogu magacdaray isdhexgalka bulshada iyo nabadda oo aan ka qabanayno guud ahaan degmooyinka Koonfur Galbeed. waad ogtahay deegaanada Koonfur Galbeed inta badan dhibaatooyin fara badan ayaa horay ugu dhashay haatana meelaha qaar waa go'doon bal meelahaas oo kale go'doonka sidee idinku suurtagali kartaa inaad wax gaarsiisaan oo dadkaasi aad kala qayb qaadataan? Koonfur Galbeed kulay hadda sidii hore ma aha aad iyo aad bay u soo qabanaysaa marka meelaha qaar oo maaragtay transportationka ama diyaarad ha tagto ama gaari ha tago laakiin waxyaabaha aniga aan qabanayno badan caqabad kala ma kulano wayna noo sahlan tahay. dhalinyarada inta badan oo ka mid ah jaaliyada ma wax kali ay ka tirsan yihiin kuwa dibadaha kali jooga miya? jaaliyada waxa member ka ah qof walba oo America jooga ama North America jooga laakiin dadka deegaanka jooga haweenka maaha in maaragtay ay jiraan dad maaragtay barnaamijyada wadankan ka qabanayno maahan. haddii qof deegaanka jooga xilligan ku sugan u baahan inuu qayb ka noqdo ama member uu ka noqdo bal sidoo ugu noqon karaa? aad baad u mahadsan tahay arintaas way nagu cusub tahay in maaragtay qof wadankii jooga oo jaaliyada America ka dhisan uu member ka noqdo laakiin waxaa dhici kara inaan ku soo siyaadino farsamo noocaas oo kala oo maaragtay la balaariyo waxqabadka iyo awoodda iyo aqliga jaaliyada.
inta badan markii wadar dad ah meel markay isugu timaado waxa inta badan ka dhasha khilaaf iyo isfahan darro bal khilaaf ayaa imaan kara oo dhexdiina ka dhalan kara aad iyo aad khilaafka labadii qof oo isu timaadaba khilaaf uu ka dhalan kara sidii labadii walaalaha Haabil Qaabil bay isu dileen anaga North America han jalidan khilaaf waa jiri kara wuu iska yeeriyahay khilaafka jiro khilaafka dhan walba uu ka yimaadana maaragtay xal buu leeyahay insha Allah wixii khilaaf oo dhexdeena jiro inaan xallin karno amaanaha ma ka gudbi karnaa rajaynaa insha Allah hiigsiga iyo himilada jaaliyada ay leedahay bal maxaa waaye aad is leedahay mustaqbalka dambe aad baa u mahadsantahay sirjito jaaliyadan aniga muddada la doortay waxay July 2019 mandate-keena waxa waaye 2 sano hadda hal sano ay dhamaaday hal sano ay dhiman waxaan rajaynayaa sanadkii hadda waxyaabaha soo qabtay sanadkan dhiman waxyaabo ka badan oo ka muhiimsan inaan qaban doono hadda maalmaha soo socda ama bilaha soo socdo waxyaabaha aan higsanayna waxa kamid ah inaan mantaaneyno ama u howlgalno sidaan ku mantaaneyn lahayn magaalooyin saddex oo North America ka dhisan iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed sida Xudur iyo Baydhabo iyo Baraawe inaan la mantaaneyno hadaad horey u ogeyd magaalada Minneapolis waxay mataan la tahay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari magaalada St. Paul maaragtay Minnesota waxay aydan mataan la tahay magaalada Muqdisho anagana waxaan rabnaa in magaalooyin dhowr ah saddex baa oo America ku yaalo inaan la mataaneyn magaalooyinka Koonfur Galbeed ayagoo kaga faa'iideysan kara waxa la wixii mataaneyntaas hoos imaan kara oo ay labada magaalooyin maaragtay ay isdhaafsan karaan muddooyinkan dambe waxaad qorsheynaysaan amaba aad wadaan inaad barnaamijyo aad ka bilowdaan qaar ka mid ah deegaanada Koonfur Galbeed sida Buur-Hakaba iyo Xudur bal barnaamijyadaas oo kale adigoo hal iyo laba nooga taabanaya aad u mahadsan tahay barnaamijyadaas guud ahaan waxay ka mid yihiin barnaamijkan ugu magac darnay isdhexgalka iyo bulshada oo bishii hore ka bilowday degmada Xudur ee gobolka Boqol haddana ka socda degmooyin badan oo Koonfur Galbeed hadduu Ilaahay yiraahdo wiiga soo socdo insha Allah Xudur iyo Waajid iyo Buur-Hakaba iyo Qasxa Dheere inta barnaamijkan ku qaban doona hadduu Ilaahay yiraahdo maaragtay barnaamijyada maaragtay Xudur waxaan ku qaban doonaa barnaamij aan horey Koonfur Galbeed loogu qabanin hadduu Ilaahay yiraahdo dhalinyarada ku sugan magaalada Baydhabo iyo deegaanada kale ee Koonfur Galbeedba waxaa jira qaar shaqo la'aan ah inta badan magaalada jooga ha noqoto kuwa wax bartay oo horey wax u soo bartay ku aan wax baraninba bal siday ugu qayb qaadan karaan howlaha jaaliyada ay wado dhawaanaan ay ka bilowday deegaanadan Koonfur Galbeed aad baa u mahadsan tahay horta jaaliyada weli heer ay dad shaqaaleysiiso ama maaragtay shaqo abuur ay samayso deegaanadaas weli ma gaarin laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay qaabkii shaqo abuur deegaanadaas loogu sameyn lahaa dadka maaragtay ay ganacsiyo iyo maaragtay farsamooyin iyo maaragtay wax alaale wixii maaragtay lagu horumarin karo shaqada deegaanka Koonfur Galbeed aan ka qaban doono insha Allah mustaqbalka dhow hadii Ilaahay noo fududeeyo insha Allah maxaad hawada u marsiinaysaa bulshooyinka Koonfur Galbeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo nasiibka u yeelatay inay ku dhageystaan guud ahaan Soomaali waxaan leeyahay nabadanaas nugale Soomaaliga gaar ahaan Koonfur Galbeed waxay u baahan tahay nabad iyo maaragtay isdhexgal bulsho iyo horumar in laga gudbo waxyaabihii 20 sano ama 30 sano la soo dhaafay dhalinyarada iyo maaragtay deegaanada dib u dhac ku sameeyay marka waxaan leeyahay maaragtay dal walba dadkiisa dhisto Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan reer Koonfur Galbeed dhalinyaradiisa iyo gabdhaha iyo wiilasha waxaan kula dardaarmayaa in dalkooda ay dhistaan nabadda ay ku dadaalaan isdhexgalkii isfahankii iyo maaragtay ay ku dadaalaan laga fogaado wax alaale wixii dhibaato iyo dib u dhac u keenayo dalka iyo dhalinyarada waxaan intaasi aan ku soo afmeeraynaa waraysiga gaabnay oo aan la yeelanay Gudomiyaha jaliyada Koonfur Galbeed North America Sheekh Nuur Xaaji oo ku sugan dalka Mareykanka Maxamed Iqseer Jito RTN TV Baydhabo